jadwalka biyo qaybinta magaalada Hargeysa. Biyaha maanta magaalada yimaada waxa weeye 22,000 oo mitir cubic per day. Laba meelood ayay ka kordheen biyahaasi. Mas'uuliyaddeeda koobaad waxa uu maqnaanshaha dadka reer Hargeysa biyuhu ku yar yihiin. Wiigan si injineerku inoo sheegi doono wiigan soo socdo inoo bilaabaya maalinta Jimcaha. magaaladana afar area waaweyn baan u qaybin. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Marka koobaad waxaan salaamayaa bulshada reer Soomaaliland guud ahaan gaar ahaan waxaan salaamayaa bulshada reer Hargeysa maanta oo ah maalin Arbaca ah bishuna ay tahay 5 ay tahay bisha 8aad 2026 waxaan halkan ku qabananaa shir jaraa'id oo kooban oo aan bulshada kula wadaagi doono jadwalka biyo qaybinta magaalada Hargeysa ka hor inta aanan jadwalka soo gudbin si kooban haddii aan warbixin wakaaladda aan bulshada la wadaago annagu maamulkaygan cusub waxaanu joognaa waa 5 bilood intan maamulka haynay wakaaladda biyaha Hargeysa markii aanu xilka la wareegnay biyo soo saarkeegu ay magaalada Hargeysa biyaha la soo gaarsiiyaa waxay gaadhayeen 16,000 oo mitir cubic haddii maximum ay gaadhaan 17,000 laakiin inta badan 16,000 oo mitir cubic ayaa biyaha la soo saaray gaadhayeen markii imika 5 bilood baa ka soo wareegay maalintaan la wareegnay biyaha maanta magaalada yimaada waxa weeye 22,000 oo mitir cubic per day maalin kasta 22,000 oo mitir cubic baa yimaada 6,000 oo mitir cubic baa biyihii hore ku kordhay biyahaasi waxay u baahan markaa inaynu si fiican uga faa'iideysano oo dadka ay biyuhu ku yar yihiin ama dadka aan biyuhu gaadhin ay markaasi aynu uga faa'iideyno laba meelood ayay ka kordheen biyahaasi meeli waxa weeye dayactirka joogtada ah nu ceelasha aanu markaasi ololaha ku qaadnay si aanu ceelasha markaasi aan u dayactirno bamamkooga u saxno oo imika 5 bilood 11 ceel oo kamid ah ceelashii shaqeynay ayaanu si fiican markaasi uga bedelnay bamkiisa wax uga bedelnay dabkiisa wax uga hagaajinay markaasi farsamo ahaan wixii cilad ku keenayay aanu ka saarnay taas waxay keentay in biyo si rapid leeyahay ceel kasta productionkiisa wax soo saarkiisu inuu kordho tusaale ahaan waxa laga yaabaa ceelkaanu hagaajinay inuu markii hore soo saaray 18 mitir cubic per day maalintii markaanu dib u hagaajinay inuu 730 ama 40 uu guuro taasi markaa waxay kordhinaysaa xaddigii biyaha ee magaalada imanayay sidoo kale waxa jiray 6 ceel ama 7 ceel oo ay wakaaladdu hore u qoday oo iyaguna waqtiga aan systemka soo raacsanayn iyagana systemkii baanu si fiican uga shaqaysiinay oo u soo raacinay sidaasii biyuhu 22,000 hay u noqdeen hadda maadaama biyihii inoo kordheen oo sidoo kalena aynu hirgelinay networkii cusbaa ee wakaaladdu ay ka dhisay magaalada Hargeysa waxa lagama maarmaan noqday inuu jadwalkii dhaqaaqo oo suurtagal weyn noqon weyday in lagu shaqeeyo jadwalkii hore ee networkii hore ama qasabadii hore dhismihii hore ku xidhiidhsanaa in lagu shaqeeyo way adkaatay markaa waxaanu bilownay inaanu markaa tijaabino jadwal cusub jadwalka cusub dhaqaaqo keenay biyo yaraan dhacday ma jirto laakiin waxa jira in markaa qofku maalintii uu heli jiray waqtigu oo markaasi maalin aan ahayn ay biyo xaafadu kaga beegmaan dhowr caqabadood baa had iyo jeer biyo qaybinta ka hor yimid oo ay ugu horeyso network sidoo uu samaysan yahay oo networkii hore ee magaalada dhisnaa iyo kan cusub la sameeyay marka laga shaqaysiiyo caqabadu yeeshay way magaaladu elevationkeega way kala dheer tahay meel dheer meel gaaban ayay iskugu jirtaa meel markaasi dhul ahaan hooseysa marka biyo iyagoo pressure ku socda marka dhulka hoose yimaadaan haddana buur ay fuulayaan dadkuna ay ka cabayaan waxa adkaanaysa marka biyo inay ka gudbaan meelo badan si aanu markaa taa u xalino waxyaalaha jadwalka cusub imika uu noo soo saaray ee aan hore u jirin si aanu taa ku xalino waxaanu imika diyaarinanahay oo ku mashquulsanahay boosters ama markaasi deynabooyin riixa biyaha meelaha
markaasi hayga ah ama sareeya meel biyaha gaarsiiya si dadku ay u helaan biyo ku filan qofkii isagoo qasabadii haysta ayaa laga yaabaa inuu helo biyo yar oo kooban dadna biyaha yar kooban uu helay ama ay u soo dhici waayaan sababta oo ah dhulku siduu u sameeyay yahay darteed ayaa markaasi qayb ka marka taana imika gacantaanu ku haynaa waxaanu doonaynaa magaalada meelaha criticalka ee biyaha hore u haystay ee aanay biyuhu gaadhin ama xaafadaha cusub ee biyaha loo sii daayay ee aanay weli biyaha iyagana qayb ka mid ah gaadhin labadaba waxaanu markaa injineerada iyo maamulka markaanu isla eegnay waxaanu ugu talagalnay inaanu markaa boosters dhigno ama kuwa markaasi deynabooyin biyaha riixa si ay markaasi biyaha cid kastoo qasabadii ugu jirtaa si ay maalinteeda ay biyaha u hesho imika intan aan maamulka gacanta ku haynay waxaanu culayska saarnay ceelashaasi biyaha ay soo saarayaan inaanay isdhimin oonay arrimo farsamo inaga hor iman tusaale ahaan inaanay inaga hor iman in maalin aynu soo saarno 16,000 maalin 18,000 maalin 22,000 maalin 15,000 taasi waxay keenaysaa nidaamka biyo qaybinta ayay inaga kharibaysaa marka culayska waxaan iskugu geynay waaxda biyo soo saarka in 22,000 oo mitir cubic beerdey aanay hoos uga dhicin aroor kasta waanu jeegaraynaa maalin kasta waa la eega qalad yar hadduu yimaado si markaasi magaalada ay biyo fiican u yimaadaan taasi markaa waxay inaga caawinaysaa inaynu biyaha haddaynu si fiican u maarayno haynu dad fiican gaadhsiin karno intii hore cabbi jirtay iyo inta cusub ay wakaaladu bilowdayba iyo in kale ay bilaabi doontaba intaba markaa biyo aynu gaadhsiino ayay naga caawinaysaa waxyaalaha kale ay naga caawin doona waxaa ka mid ah biyo kordhintooda aynu doonayno biyaha waxaan doonaynaa inaynu gaadhsiino maanta 22,000 baan gaadhsiinay 3 bilood ama 4 bilood soo socda waxaan doonaynaa inaan gaadhsiino 27,000 27,000 waxaanu ka keenanaa ceelal cusub oo noqday kama keenna laakiin kuwa hore oo dayactirkooga ilaalino inta aan systemka soo raacin ee aan maaragtay biyaha magaalada keenin inaanu soo marino networkii hore ee wakaaladu ka guurtay wakaaladu sanadkii 2022 waxay shutdown ku samaysay xidhay nidaamkii biyuhu ay soo mari jireen ee Chinese-ku uu u sameeyay magaalada Hargeysa kaasoo ka koobnaa 2 pipe labada pipe oo min 12 inch ahaa 12 inch midkiiba waxa oo u dhigmayay labada marka la isku daro waxay u dhigmayeen kan imika biyaha keena ayay u dhigmayeen kan badhkii bay u dhigmayeen marka labadaasi waxa shaqadii bay laga joojiyay arrintaasi waxaan u aragnay anagu inay tahay arrin muhiim oo critical ah in la saxo haddii pipe-kan imika magaalada keena ay wax ku dhacaan magaalada meel kale biyo soo marayaan ma jirto si markaasi standby u noqdo dheeraadkana aan u soo marino waxaan culayska iskugu geynay inaanu kicino qaybtii Chinese-ka ahayd ee 2022 la xidhay marka geed deeblaan ka soo bilownay injineeradu marka gacantay ku hayaan imika biyo shiinahaanu marinana marka biyo shiinaha ayuu markaasi soo gaadhay markuu halka yimaado wixii ka dambeeya magaaladu imanaya 5,000 mitir cubic oo dheeraada ayaa isagana hanu markaasi rajaynana inaanu ku soo darno 27,000 markay noqoto beerdey 27,000 haddii 27,000 haddaynu si fiican u maarayno dad badan baa markaa ayaa markaasi biyaha helaya marka waxaan ku soo gabagabeynayaa mas'uuliyaddeeda koobaad waxa uu maqnaanshaha dadka reer Hargeysa biyuhu ku yar yihiin inaan u maqanahay biyahana aan u saxno qaladka jadwalka dhaqaaqa ku yimid maalintaas cabashada dadweynaha xafiiska noogu timid miidiyaha soo martay waxa weeyaan inay ku salaysnayd dhaqaaqa laakiin aanay biyo yaraan ahayn waana mas'uuliyadda annagana saaran oo hore sidaan u sheegnayna bulshaduna nagala xisaabtamayso ilaahayna nagala xisaabtamay taas baanu aroortii xafiiska u nimaadnaa ilaalinteeda caqabadaha ka soo baxa markaa jadwalka cusub waxaynu ku dhex saxanaa ilaa intuu fadhiisanayo waxaynu ku dhex saxanaa shaqada maalinlaha oo imika sanadkii 2022 markii la tijaabiyay biyo balaarinta qaybteedii hore jadwalku dhaqaaqay haddaad xasuusataan marka jadwal cusub bay wakaaladu samaysay intii jadwalka sameeynasay marka culays baa jiray ay dadku biyo la'aanta ka cabanayeen marka laba arrimoodba dadku ay ka cabanayeen biyo la'aantaas jadwalka duu dhaqaaqo cycle-ka soo wareega ayaa ku fogaanaya laba sababoodna way sababayaan meelaha biyuhu sida fiican u yimaadaan inta badan kayd badan ma samaystaan dadka foosto laba foosta guriga u dhextaan taasi waxay keenaysaa inuu markaa 3 cisho xamili waayo qofku
inay biyihii ku soo wareegaan inuu yar xamili waayo marka mar dadka waxaan kula talinayaa kaydkoogu inuu fiicnaado oo kayd wanaagsan ay 4 cisho biyaha ku sugi karaan ama 3 cisho ku sugi karaan ama hadduu qalad yimaado ay 7 ku sugi karaan inay kaydkaa samaystaan sixidiisana waxaan rajaynayaa wiigan si injineerku inoo sheegi doono wiigan soo socdo inoo bilaabmaya maalinta jimcaha ayuu jadwalka rasmiga bilaabmaya qaladaadkeena ka soo noqda si farsamo ah ayaa haddii alla yidhaahdo aynu u sixi doono waxaan ku darayaa unoo kusoo gebagabeynaya intaanan jadwalka aynaan yeedhin magaalooyinka sideenoo kale biyuhu ku yar yihiin haddaa marka waxyaalaha laga qoray ribootyada laga sameeyey warbaahintu waxay ka samaysay marka dib u eegtaan waxaad arki doontaan jadwal aad u adag oo ama maalin ama 2 cisho ama khuseeya tiro aad u yar oo dadka markaa biyaha loogu qaybiyey iminka haddaa tusaale ahaan dalka Jordan magaalada Ammaan oo haddana webi u dhow yahay waxay ku jirtaa meelaha maaragtay sideenan oo kale biyuhu ay aad ugu koobayn magaalada marka jadwalka biyo qaybintu dadku siday ugu diyaar garoobaan wakaaladu ugu diyaar garoobaan waxay ka jirtaa meel adag dalka Itoobiya inoo dhow magaalada Addis Ababa oo magaalooyinka waaweyn ee dadka ugu faraha 30 milyan baan u malaynayaa dadka ku nool inay yihiin populationku wuxuu pressure ku hayaa qaybinta biyaha waana biyoguna way badan haddii jadwalkooga had akhridaan xaafadda waxa laga yaabaa ama areada inuu 2 cisho ama maalin soo maro toddobaadkii marka jadwalkeenu wuxuu ku salaysnaan doonaa siduu injineerku idiin sheegi doono cycle 3 cishaba inuu 4 cishaba maalin yimaado qofka inuu 3 cisho biyo ka maqnaadaan magaaladana 4 area waaweyn baan u qaybin 4 area markii area cabaso 3 area kale waxay sugayaan inta areadaas soo cabaso dhayto waxa cabasa area kale si biyaha culayskooga aan halka isku wada geeyno dadka areada jooga hay biyo wanaagsan biyahan baahaya qasabadaha inaga jira aan farsamo ahaan yarayno aad baad u mahadsantiin waxaan mar labaad bulshada reer Hargeysa ugu bushaareynaya in jadwalkaasi ay nala qabsadaan insha Allah aadna waad u mahadsantiin salaamu calaykum